maamul goboleedyada iyaga nafsigoodu qof walba si ha u arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadeena ay ku dhismayso oo aan ku fasirayno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate annagu waxaan aaminsannahay inkastoo qaarkood ay nagu dacaayadeeyaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad centralista ah waa dowlad awoodda rabta inay qaadato annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annagaa ah maxaa yeele waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog laha rabnaa waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigrationka iyo xuduudadeeda ilaalisa waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh dhaqaalaheedana iyadu kontroolsho karansigeeda iyadu kontroolsho dowladda dhexe aan rabno waa noocaas anigana waxaan u arkaa inaan nahay pro federal system inaan nahay wixii ka soo horjeeda taas waa anti federalism waay waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogolnahay in la wada lahaado iyo wax dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii laakiin dowlad dhexe inuusan muran ka gelin qof walba oo Soomaali ah khaasatan dhalinyarada dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dalka difaacda wixii ka soo haro waxa la yiraahdaa confederate aliyaha confederate annagana confederate ma doonayno ama loose federalism ma doonayno macnaheedu waxay tahay wada shaqayn fiican naga dhaxaysa laakiin debate yaan ku jirnaa idinkana waxaa la rabaa debatekaas inaad qayb ka noqotaan oo aan nasaxdaan annagu haddaan khaldannahay xitaa nasaxdaan iyagana nasaxdaan haddii khaldan yihiin maxaa yeele mustaqbalka Soomaaliya xukuumad ma laha shakhsina ma laha annagoo dhan ayaa wada leh waa mustaqbalkiina weyn waa future-kiina weyn marka inaan ka wada shaqeyno arrintaas